ku-xigeenkii madaxa al-shabaab kana mid ahaa aasaasayaashii ururkaasi Sheekh Mukhtaar Robow Abu Mansuur ayaa ka soo degay gaari noocan xabadaha karin waxaa ilaalinayay ciidamo ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo watay gaadiidka dagaalka waxaa ka muuqday daal iyo diif muujinaysa dagaaladii uu galay iyo duurkii uu ku noolaa waqtiga dheer waxa uu ila muuqday qof ka fiigtaalsanaa ama uu ku jiro dareen uu kaga didsanaa warbaahinta iyo dad kale oo askartu ay ka mid ahaayeen kadib hool loo diyaariyay oo uu yaalay calanka Soomaaliya oo cadow uu arki jiray Abu Mansuur ayuu mowqifkiisa ka bixitaanka ururkii uu ka tirsanaa ee al-shabaab uga dhawaaqay waxaan u cadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed caalamka oo dhan qodobadan soo socda kow inaan ka baxay ururka xibanimadii aan ka ahaa ururka al-shabaab muddo laga joogo 5 sano iyo 7 bilood sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf aqiido ku qotoma khilaaf aqiido oo ku saabsan arrimaha aan diinta dadka iyo dalka u adeegaynin tan kale muddadaas 5 sano iyo 7 bilood waxaan ku noolaa duurka meel ka mid ah Bokool meeshaasna waa la igu weeraray taasoo la rabay in la igu dilo ilaahayna waa iga badbaadiyay waana iska difaacay tan kale waxaan u mahad celinayaa dawladda Soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda caalamka kaalinta ay ku lahaayeen in heerkan ay wax soo gaaraan waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay wada hadallo uu dawladda kula jiro beesha caalamka iyo saaxiibada dawladda ayuu dadaaladan uga mahad celiyay waxaan cadeynayaa in uu wada hadallo noo socdo dawladda federaalka Soomaaliya oo aan marti u ahay magaalada Muqdisho wada hadalkaasna aan ka filayo natiijo isfahan waxgal noqdo insha Allah taala qodobka ugu dambeeyo waxaan mar kale ama mar labaad u mahad celinayaa dawladda Soomaaliyeed shacabkeeda iyo madaxdeeda sida diiran ee la igu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho Sheekh Mukhtaar Robow Cali Cabdi Abu Mansuur waxa uu noqonayaa hogaamiye afraad ee ka soo goosta al-shabaab waxa hore ururkaasi uga soo goostay Sheekh Xasan Daahir Aways oo aan wali cadeynin mowqifka uu ka taagan yahay al-shabaab isla markaana xabsi guri ah sidoo kale Zakariya Ismaaciil iyo Sheekh Maxamed Saciid Atam ayaa isku soo dhiibay dawladda Soomaaliya kuwaas oo cadeeyay mowqifka ay ka taagan yihiin al-shabaab isla markaana cafis ka codsaday dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed sida uu afkiisa ka sheegay Sheekh Mukhtaar Robow Abu Mansuur hogaamiyahan isa soo dhiibay 5 sano ka hor ayuu bilowday dagaalka u dhaxeeya isaga iyo ururkii hore uga tirsanaa ee al-shabaab Danaasir Maxamed Television on Cable magaalada Muqdisho